Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Dhammaan taageerayaasheeda ku xiran YouTube channelka waxaa leeyahay soo dhawaada. Waa isku soo noqonnay. Maanta waxaan diiradda saaraynaa shirkadda My Forex Fund oo hawada ka baxday, wixii dhacay, sida wax u dhaceen, halkay wax marayaan, iyo waxa la filanayo inay arrinta ay ku dhammaato. Sidaa ka warhaysaan saaxiibayaal, Brofamiska waxaa jirta laba shirkadood oo ugu caansan oo hadda calaashaan suuqana qabsaday. Waxay ahaayeen labada shirkadood My Forex Fund iyo FTMO. FTMO My Forex Fund way ka dambeysay, hase ahaatee ayadaa ka macaamiil badneed, iyadana dadka aad u jeclaayeen. Sababtan waxaa waaye shuruudaheeda oo fududaay iyo qaabka lacag dhigashada, verificationka, calaashaan supportiga, wax walba meelo badan ku fiicneed marka loo barbar dhigo shirkadda FTMO. That's why My Forex Fund ayadoo ku horeysay FTMO ay ugu shacbiyad badneed. Marka intaas laga yimaado, kowdii bishan waxaa dhacday in shirkadda My Forex Fund gebi ahaanba la xanibo ama la joojiyo ama freeze la saaro, xanibaad la saaro. Arrinta sababta loo saarana wax kale maahan, waxaa waaye waxaa lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo isdabamarin markaasi ay sameeyeen, in ganacsigooda qaabka howlaha u qabtaan oo mugdi badan uu ku jiro. Marka sidaa ka warhaysaan, hadda website-kooda aad booqatid waxaa ku qoran maintenance mode ayuu website ku jiraa. Waxay markaas soo qoreen qoraalkan ay u reebeen dadka website-kooda soo booqanaya. Waxayna leeyihiin shalay waxaa ogaanay kulaha in ogeysiis la'aan iyo wada hadal la'aan, in regulator oo Canada ah iyo guddiga badeecooyinka ee Mareykanka ay soo saareen xanibaado, taasoo preventing us from trading securities, taasoo markaa noo diideysa inaan suuqa ka shaqeysano, ama sidoo kale inaan lacagteena aan access u yeelano inaan isticmaalno bangiyadeena. Marka ayaga waxay leeyihiin akoonada bangiyada lacag nagu jiro wax dhanaa la xayiraad saaran. Marka waxay leeyihiin until marka these freeze orders are lifted or modified, marka inta xanibaadaha laga qaadayo ama wax laga bedelayo, waxay dhaheen our business is effectively and at least temporarily frozen as well. Sidoo kale ganacsigana wuu istaagay, uu xanibaadaha saaran. Marka waxay leeyihiin waxaa la xiriireynaa leeyihiin regulatorska si arrintan uu soo korta ugula hadalno. The first court date xilliga ugu horeeya maxkamadan waxaa loo asteeyay September 11 ayaa dacwadda loo fadhiisan doonaa Mareykanka. Then kadibna Canada ayadana dacwadeeda xigi doonta saa rajeynayo. Marka waxaa laga yaabaa inay isweydiinayso kambanigan headquarterkiisu waa Canada, maxaa ka quseeyo Mareykanka, maxkamadda Mareykanka. Sidaa ogtihiin waa isla shaqeeyaan, waa isku xiran yihiin, wada shaqeyn xoogana ka dhexeysa Mareykanka iyo Canada. waxyaabo badan sharciyadu isaga mid yihiin. Marka qaabkaas waaye. Marka cidda ku dhegana waxaa waaye CFTC oo ah guddiga la socodka futures tradingka. Marka waxyaabaha marka lagu eedeeyo waxay soo dhigeen post soo dhigeen, qoraal ay soo dhigeen. Qoraalkaas marka waa kana waxay leeyihiin CFTC charges waxay ku dacweynaysaa leeyahay My Forex Fund with fraudulently taking over 300 million from customer hoping to become a professional. shirkadda My Forex Fund waxaa lagu dacweynaya inay si khiyaano leh 300 milyan lacag $300 milyan oo dollar
ku dhow inay maaragtay ka qaadatay yacni traders markaa rajeynaya inay noqdaan professional. Okay, marka dacwadan waxay soo baxday 1 September 2023 bishan 1 hadda ku jirno. marka ayadoo faahfaahsanna waa kana qoraalkan ay soo dhigeen sababta u haystaan cidda ay haystaan iyo maaragtay xaalka soo noqon doono. marka haddii aan fiirino waxyaaba ugu muhiimsan qoraalkan waxyaaba lagu haysto waxaa ka mid ah shirkaddan inay maaragtay qaabka u shaqeynayso inuu mugdi badan ku jiro oo calaashan waxyaabaha maaragtay ku eedeynayaan waxaa ka mid ah inay maaragtay sameeyeen oo kale inay maaragtay ku dhowaad yacni ay diiwaan gelisheen 135,000 oo customers ah, sidoo kalena lacag 310 milyan oo dollar yacni inay fee ahaan yacni uga qaadeen dadkaas. yacni waxaan lagu eedeynaa ninka yacni iskale kambanigan Kazmi inuu isticmaalo maaragtay inuu lacagtaas u isticmaalo inuu ku iibsado yacni guryo iyo baabuur inuu ku iibsado, sidoo kalena lacag 10 milyan oo dollarna yacni akoonkiisa uu ku wareejista. Okay, marka arrinta kale oo maaragtay waxyaabaha kale ugu muhiimsan dacwadan oo yacni ka soo qaadan karo waxaa ka mid ah in yacni forex fund yacni waxay dhahdaa marka traderska iska diiwaan gelinayo waxay u sheegeen inay isticmaalaan brokerkaas oo la yiraahdo global traders global in brokerkaas. marka laakiin CFTC waxay leedahay traders global yacni waxaa iska leh ninka iska leh my forex fund oo yacni calaashaan waa ayaga macnaha waa counterpartiga yacni waa yacni cidda tooska macaamiisha ula macaamilayso waaba iyaga waayaba. marka arrintaasna yacni tuhun badan iyo madow badan ku jira leedahay. sidoo kale waxyaabaha lagu eedeynaya waxaa ka mid ah inay maaragtay dadka yacni si marmarsiyo leh akoonada ugu xiraan qofka yacni dhahaan akoonka waa ku dhacda challenge ayadoo laga yaabo qofka inuu shuruudihii buuxsho dadaalay oo yacni risk management sameeyay dadaal badan la imaaday shuruudaha sida rabo u soo buuxshay marmarsiyo yacni inay akoonka ugu xiraan qof. laba waxaa lagu eedeynaa inay isticmaali jireen yacni sida halkan ku cad specialized software to cause customer orders to be executed at worst price yacni software yacni ka gelinaya qofka traderka qiimaha maaragtay ugu xun ugu liita suuqa maaragtay marka loo eego qiimaha saxda ee u muuqdo xilliga maaragtay orderka uu traderka uu sameynayo iyo sidoo kale inay maaragtay ku tutunteen oo kale maaragtay in yacni small number of successful customers inay maaragtay ay guuleysanayeen si maaragtay u yareeyaan profitka customerka sidoo kale u badiyaan khasaaraha. sidoo kale waxyaabaha lagu eedeynayo waxaa ka mid ah inay maaragtay isticmaali jireen oo kale yacni software yacni ka shaqeynayo in qofka traderka uu ku failgaroobo challenge yacni software waxay leeyihiin yacni software waxay isticmaalayeen hubinayo qofkaas inuusan challenge ka soo gudbin si ay lacagta ayaga xalaal ugu noqoto. aada loo haystay ka mid tahay aniga ma hubo yacni sida ka wareysaan aniga yacni financial expert ma ihi laakiin wixii dhacay aan ka laabis. marka waxay leeyihiin yacni waxay isticmaalayeen software yacni qofka maaragtay lacagtiisa lagu xalaaleysanayo oo yacni lagu ridayo intiina yacni ku jirtana yacni
my forex fund si good profamiska waxaa laga yaabaa in adiga marka aad la yaabantahay sababta aadan wax horumar ugu sameynayn tradingka mar walba khasaare joogta ah oo la kulanto inkastoo dadaasho inkastoo aqoontaada meel fiican ay gaarsiisantaha isku kalsoon tahay waxaa laga yaabaa haddana inaad u malayso inay adiga wax kaa qaldayin laakiin xaqiiqatan adiga waxba kaama qaldana waxay wax ka qaldayiin waa platformka aad isticmaalayso ama meesha ku taageerina waayo ka waran haddii adigoo markaas dadaalaya maaragtay risk management aqoon fiican leh si fiican suuq analyse gareeyay isku kalsoon intaasoo sano 5 sano 4 sano laga yaabo inaad suuq ka shaqaysanaysay kalsooni intaa la isku qabtid haddana macna dhaqaaq aad sameyn karin waxaa laga yaabaa marka inaad adiga is leedahay yani adiga wax kaa qaldeen damiinaad tahay ama aqoon kugu filameystid ama yani istaraatiijiyada wax ka qaldan yihiin it doesn't matter يعني dhibka taa kama taagno waxay wax ka taagan yihiin waa systemka isticmaalayso oo yani qaab maaragtay manipulation badan oo ku jiro maaragtay marin habaabin khiyaanooyin waxyaabo badan isdabamarin adiga marka lagu khasaarinayo maanta oo dhan waxaa laga yaabaa inkastoo yani shuruudaha wax kasta ka soo baxay si rabo dhamaystirtay challenge xataa meel fiican ay ka gaartay in lagu dhaho yani email lagu soo diro lagu leeyahay yani we don't like how you trade like يعني qaabka u targeerinaysa bakama helin oo yani adii ma aragtay wax wal marmar si kasta lagu isticmaalo dir lagu dhaho yani ana wax ka shakin inaa isticmaalaysa robots ama software ama hacking tool isticmaalaysa oo yani ay ku dhaano kale macquul ma intaas tradisana soo martay kulligoodna ma aragtay ku feel garoob jireen adiga saa ku dhacday inaa ku baasto yani maxaa isticmaal waxyaabahaas kale inay kugu abuuraan oo kale shakigaas ee lacagta wax xalaaleystaan waa waxyaabaa lagu eedeynaya ka mid tahay marka it is what it is marka ani ahaan waxaa idin leeyahay hadda ka horna waa ka digay shirkadahan programska ayaa lagu kalsoonaan qofka mustaqbalka la suuqa iska dhaafo laba shirkadaa soo qaatay FTMO iyo Funny Talent intay sawada ka bixin ka horan ka dig waxaan dhagal iska daayo shirkadan scam waaye baaritaan dhan walba ku sameynay waxaa xaqiiqo noo soo baxday inay scam yihiin dadkana way ugu dignay sidoo kale shirkadan FTMO iyadana hadda way shaqeysaa ma rabo inaa ayada maaragtay hadda eedeeyo ama dhaaway xunta ama wanaagsan tahay balse muuqaal jiray yani aan maaragtay aan ku sameynayo falanqeyn waxyaabaha ku liidato waxyaabaha ku wanaagsan tahay sidaba ani marka company aan ka soo hadlayo waxaan isla barbar dhigaa waxyaabaha company ku fiican yahay waxyaabaha ku xun yahay marka adiga go'aanka leh in company-gan aad ku biiraysid inaad iska dhaafayso waa arin adigu qusayso waa okay marka arinta hadda way dhacday way timid hadda yani waxba faraa kuma haysid laga yaabo in account aad lahayd oo yani challenge-yada aad ku baastay oo hadda saa kaaga maqan yahay laga yaabo lacag aad dalbatay inay hawada kusoo jirto weli isku soo gaarin aad sugaysay weegan inay ku soo dhacdo waxaas oo dhan ayadoo jiraan waxaan ku leeyahay marka adiga waa inaa mar walba balan bi a yeelataa sidoo kale ani dadka waxaa kula talay inay brokerada caadi iskaga shaqaystaan yani safe waaye say u badan yihiin brokerada qaar waxaa kamid ah XM waxaa kamid ah brokerkan asna muddo jiray FX Primus asna waa iska wanaagsan yahay marka kuwaas bal hala soo fiirsho sidoo kale waxaa maqlay yani accountiyada yani dadka ay ku trade garaan challenge-yadan maba ahan wax real ah waa demo from phase 1 from phase 2 to live ka markaad tagtid waa demo live ka yani adiga waxaa lagu siinaya liquidity bisa ujeedaa suuqa ujeedaa MT4 ki yani liquidity wax kale maan waa yani suuqa aad ka arkayso MetaTrader 4 ka price-ka dhaqaaqayo yani waxaas waa liquidity marka dee qof walba iibsan karo adaa iibsan kartay anaa iibsan karo wax weyn ma lacagtan marka shirkadda marka main source of income wuxuu ahaa fees oo dadka ay ka qaadayeen marka fees waxaa la sameynaa waxay leeyihiin brokerada marka programmiska A-book iyo B-book ay leeyihiin A-book marka waxay ku daraan kuwa successful-ka maaragtay ay ka badi waayaan oo kale of course يعني waa loo baahan yahay dad macnaha successful ah oo yani hadhow barnaamijkan
yani sii sheegay inuu yahay ayaga ay ku baaseen, yani ayaga kambaniga faa'iiday u taaba in qaar successful ay haystaan, sababto ayagaa dhow dadka sii gaarsiinaya, waxay leeyihin anaga jaanjiyada ku baasna, anagaa saan yeelna, anaga ka dhacna, anaga intaan lacag sameyno. Of course yani qorshooda waayo taas. marka dadkaas waxay ku daraan A ku daraan, qaybta kalena yani loseriskana B ku daraan. marka qaybta B ku daraan waxay sameynayaan calaashaan ayagaa waxay ku sameynayaan manipulation ku sameynayaan oo yani qofkaas yani waxay ka shaqeynayaan soo ku khasaari lahay, si kasta uu ku khasaari lahay ay u shaqeynayaan, ama ha ahaado inay maaragtay softwareka hadda lagu eedeynayo isticmaaleen ha isticmaalaan, ama ha isticmaalaan yani marmarsiyo kale, ama xataa ha isticmaalaan inay ayagana maaragtay qofkaas tradeku qaato lidkiisa ay qaataan, whatever the case. labadaas marka A iyo B u kala saaraan. A marka dadkan successfulka ah, marka waxaa la sameynaa dadkaas dhacay oo jaanjiyada ku dhaco lacagtooda leen mugtaa ama dhac ama baas lacagtaada already macna waa bixis, ayagaa qahaystamano lacagtaas. marka waxay sameynayaan waxay ku fangareynayaan kuwii guulaysta. okay, marka brofamiskan yani waxaa u malaysaa shaatigan inay iska huusan yihiinoo brofamiska sideeda macnaha dii la qeexo waxaa waaye waa kambani yani lacag badan haysta, hanti haysta, hantidaasna yani inta maaragtay bangi ama meel yani suuq keena ama exchange kadibna dhaha lacagtaas yani traders professionalis ah oo hantidan ku shaqeeya doonayna, laakiin tijaabaha qaadayna, kii ku baaso ayaa ogolanayna inuu ku shaqeeyo. brofamiska macnaha magac guud waa sax, laakiin kambaniyashan ma jiro hanti ay leeyihiin oo ay gaar u leeyihiin ama tooda ah, yani aday lacagta kaa qaadayaan, isla aday lacagta ku khasaarsiinayaan, isla idinkeena maaragtay lacagta faa'iidadana waxaad ka siinayaan, idinka lacagtiina marka lagu ciyaaray wax lacagta maaha, lacag ay leeyihiin maaha. lacagta marka dadka laga aruurinaa, dadkaas qaara la siinaa, inta ugu badanna waa la khasaarinaa, intaasna ayaga qaana. waa sida eedda macnaha ka muuqata. marka adiga waxaa laga rabaa inaa maaragtay hadaa suuqan ka leedahay mustaqbal, waxaa ku wanaagsan inaad maaragtay aad isticmaasho broker adi kuu gaar ah sida FX Premise, XM, kuwaas ka tareedgaray insha allahu tacaala. lacagta ajaanija aad ku gadanaysidna aad hubin inaad ku baasisid, inaad ku dhacaysid, yani waxaa ku dhihi lahaa akoon caadi iska furo, kaas iskaga shaqeyso. aniga naftirkeyga waa ku shaqeystaa, akoon caadiya leeyahay. qofkii kalena yani sidaas oo kale kula talnaa qof kasta inuu saas sameeyo. marka updatekaas ayaa idinla wadaagi lahaa, marka saas isku guna insha allah.